dowladda hoose ee magaalada Burco ayaa banaysay wada halbowlo u ah magaaladaasi taas oo ay xireen ganacsato yaryar oo ku dhaqan magaaladaasi. Warbixintan waxa inoo soo diray Maxamed Saciid Gaxno. dowladda hoose ee magaalada Burco ayaa howlgal ballaaran ay ka samaysay wadooyin xidhnaa oo ku yaalay bartamaha magaalada Burco gaar ahaan wadada dhexmarta bacadlayaasha Burco ayaa howlgalkani waxa horkacayay xogayaha fulinta ee dowladda hoose Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur iyo sidoo kale ciidanka booliska ee gobolka Togdheer. xogayaha dowladda hoose ayaa howlgalkani ka warbixiyay ma aha magaalada Burco faras magaaladeedu inuu xadibnaado ma aha in meel la maro bakhaaraydii xadibnaato ma aha in gaadiidka meel uu maro waayo waxaanu u sheegaynaa oo ka wacyi gelinaynaa dadka muwaadiniinta ee suuqa laamiyada bartankooda ku ganacsanaya ee laamiga ka xiran yahay ee baabuurta iyo gaadiidka aan isu talaabaynin in laga bilaabo maanta qof walba ka baydho wadada qof kasta inuu isagu is ixtiraamo isagu is xilqaamo wadada u baneeyo wadadan ka soo bilaabanta barabara ilaa meesha la yiraahdo xarunta dahabshiil way xidhnayd baabuur ma mari jirin waxaan laba lugood laahayn ma maraan waxaan u sheeganaa maanta waa taa mahwiga ah ee gaadiidka isku weydaaranayaan laamidan waxa loo sameeyay wadadan waxa loo sameeyay labada dhismo dhexdooda in ay banaanaato Burco waa magaalo madaxdii labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waa inaynu ilaalinaa laamiyada wadooyinka oo aynu ka ilaalinaa wixii wadooyinka xiraya dadweynahana waxaan doonaynaa inay nagu gacan siiyaan aad iyo aad baa u mahadsan waxaan doonaynaa haddii alla ka dhigo qofkii halkaa wax ku dhex ganacsada laamiga bartankeeda ee loogu yimaado waa la ganaaxayaa ganaax baa loo jaraya laakiin waxaan u sheegaynaa oo ka wacyi gelinaynaa in badanna aanu ku celcelinay inay baneeyaan wadada haddii si qofku maqli waayo waa la ganaaxaya waana laga kaxaynaya wadada geesta kale warbaahinta gobolka Togdheer ayaa weydiiyay halka ay u rari doonaan ganacsatada yaryar ee ku ganacsata alaabta ay saartaan kaaryoonka dushiisa waxaan ugu talagalay halkan hangar weyn baa bartana layrkii baanu gelinay biyi baanu gelinay nooc kasta uu leeyahay hangarkaasaan ku xareynaynaa habeenkii xitaa ku shaqeyn Maxamed Saciid Gaxno telefishinka caalamiga Arteen magaalada Burco.